odaygii islaantii iyo caruurtoodii saddexda xisbi bay kala taageersanayeen cidina dhibaato uma geysan jirin cidina uma hanjabi jirin cidina ma xirxiri jirin dimuqraadiyad iyo waxay ahayd sidaynu u dooranay inaynu kala raacno axsaabta laakiin maanta waxay maraysaa caburin cagajuglayn iyo hanjabaad in dadkii shacabka ahaa ee ikhtiyaarka lahaa ee xorriyadda lahaa ee cidday doonaan taageerayey lagu caburiyo loo hanjabo maxaa xisbiga wadani u raacdeen xisbiga kulmiye dabeecado aan dalku lahaan jirin oo axsaabta aan lahaan jirin ayay ka wadaan dalka taasina waxaan leeyahay ma dhaqayso Somaliland doorashana kama dhacayso kolka ay maanta isagiyo aan la gaarin doorashadii ay shacabkii ku caburinayaan xaafadahoodii oo ay bilaa sabab ku xidhayaan oo ay u soo adeegsanayaan madax dhaqameedkii iyo shaqaalaha dawladda waxay tahay taasi oo aan dadka reer Somaliland uga digaya arrintaa in foojignaan dheer laga yeesho sababtoo ah xisbiga kulmiye wuxuu maanta damacsan yahay niman mas'uuliyiin oo kulmiye ah waxay igu yiraahdeen dadka lacag baan ku iibsanaynaa arrinkoodu wuxuu marayaa lacag iyo muxuu ahaa caburin kasakow taasi waxa kaloo siyaasi dhoolayare ka hadlay karaamada qarankani lahaa iyo kalsoonidii beesha caalamka bohosha kulmiye ka tuuray waxaanu tusaale u soo qaatay taariikhda markii u horeysay oo Somaliland musuqmaasuq darkii looga joojiyay deeqihii dunidu siin jirtay Somaliland muddo 27 sanadood jirtay dawladda kulmiye waa dawladda kaliya ee hay'adihii caalamku ay musuqmaasuq awgii looga jaray deeqihii caalamiga ahaa ee la siinayay shacabka waxaan u sheegayaa waa taariikh dhaba waa dawladda kaliya ee musuqmaasuqa ay faraha kula jiraan markay dhameeyeen hantidii dawladda looga xanibay ee looga jaray musuqmaasuq awgii waxaynu ognahay hay'adaha wax soo saarka wasaaradda wax soo saarka wasaaradda caafimaadka maxay ahayd deegaanka beeraha xoolaha xagga budgetka waxa la siiyaa boqolkiiba 2 wax ka yar waxa jirta boqolkiiba 20 loo qoondeeyay wax soo saarka oo wasaaradda maaliyaddu ay tiri waxaan ugu tala galay wasaaradaha laakiin boqolkiiba 20 ka meel aliyaana meel ay maraan la garan maayo wasaaradda maaliyadda hal weydiiyo wasaaradahaas oo aynu ognahay TV-ga qaranku inuu ka budget badan yahay 5 wasaaradoodba oo loo adeegsado caburinta shacabka iyo odayaal la soo fadhiisiyo la yiraahdo anagoo reer hebelna taageera taas shacabku waxay u adkeysan karayaan maaha waxa kale iyaduna jirta musuqmaasuq xarkaha goostay maanta waxaan leeyahay shacabka nimanka wasiirada ama dadka kulmiye u ololeynaya waa kuwa dawladihii caalamku ay hantidii deeqdii ay dadka siinayeen uga jareen dartood musuqmaasuq ay ku jiraan waxa aynu arkaynaa inay sanad walba cimrada iyo xajka tagaan anigu ma garanayo maxay ahayd ilaahay baa dee og laakiin ma garanayo xoolaha ummadda ee ay xajka intay tagaan isku soo sawirayaan ee ay leeyihiin kulba xaj baan tagnaa sida ilaahay qof xoolo ummadeed ilaahay maxay tahay xoolo ummadeed qof ku tagrifalaya xash iyo meel kala toona laga aqbali maayo waxa weeye dadka iyo ummadda reer Somaliland waxaan leenahay ha ka feejignaadaan doorashada soo socota sida imanka maanta la wada waxa la yiri ninka aan garan waxa jooga waxa soo socda ma garto Cabdir Saaqteer